kulanti wacan daawadayaasha sharafta leh ee ku xiran janalkan Shabeellaha TV kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa dagaal culus oo mar labaad ka dhex qarxay Naajo Caraale iyo Dirisle Cabdi. Naajo oo wacad ku martay in ay xabsiga dhigayso Dirisle Cabdi. maxay tahay sababta keentay dagaalka yaasa gardaran labadooda? inta aanan ku bilaabin warbixintan xasaasiga ah, haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee aad ku timaado janalkan Shabeellaha TV, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janalka subscribe aad saarato furtana gambalka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada xiisaha leh ee aan halkan ku soo baahiyo. mar labaad ayuu dagaal afka hadal ah uu ka dhex bilowday Naajo Caraale oo ah gabar youtuberad ah iyo youtuberka weyn ee Dirisle Cabdi. Naajo oo markii hore ka soo dhex muuqatay janaalka Dirisle Cabdi, halkaas oo ay caan ku noqotay, walow ay markii dambe Naajo la saaxiibtay King CK oo ah youtuber caan ah, dhanka kalena xifaaltan xoogan uu kala dhaxeeyo Dirisle Cabdi. xiligaas waxaa ka dhex qarxay dagaal culus sababtoo ah Dirisle Cabdi waxa uu ka xumaa qof uu soo caan bixiyay oo haddana aaday qof uu xifaaltan xoogan uu kala dhaxeeyo. dhowr jeer oo hadallo xanaf leh ay isku mariyeen hawada, ugu dambeyn dagaalkaas waa uu soo dhammaaday. hadda ayuu mar labaad dagaalkii dib u qarxay kadib markii ay Naajo Caraale ka soo dhex muuqatay hees uu dhowaan soo saaray fanaanka caanka ah ee Lil Baliil, heestaas oo lagu magacaabo Last Song. markii ay soo baxday heestaas waxaa reaction ka sameeyay Dirisle Cabdi. intii uu waday reactionkaas wuxuu si cad u inkiray qofkii isaga uu soo saaray caanna uu ka dhigay. Dirisle Cabdi oo iska dhigaya qof aan garanayn Naajo ayaa yiri waa tuma gabadhan ma gabadhii saddexda youtuber wax la duubtay baa anoo gabadhana meel ka mudday ma tuma iyo gabadha tani mimi daawo meel ka mudday marciin oo tahay gabadha wad garanaay wiilkiisa beeyada iyo wad sheekada هذا واحد مو جري قبل مع سدح يوتيوب في الصوصي مو جري taas uu ula jeedo ma gabadhii fiidiyoyada la duubtay Dirisle Cabdi, King CK iyo Shiine Culay. gabagabadii muuqaalka Dirisle ayuu haddana si cad u inkiray Naajo Caraale isagoo yiri wax gabar ah muuqaalka kuman arag. intaas kadib Naajo Caraale ayaa soo duubtay muuqaal ay iyadana ugu jawaabayso Dirisle Cabdi. Naajo ayaa tiri haddii aadan aniga i aqoon maxaad u soo qaadataa muuqaaladeeda, tan kalena aad muuqaaladeeda ugu raadisaa bariis. wuxuu yiri miyaynan ahayn gabadhii saddexda youtubered la soo samaysay baan moodayaa, miyaynan ahayn ayadii. adiga waxaad u malaysaa in aniga iyo seesid. no wallahi adaa isyaasay aniga ima yeeseesid iyo wad sheekada adaa illa in nacabo ila dagaalsane bal qof aan nacabta ila dagaalsanta amaan si oo fiidiyoyaasheeda u nabadgeli. day noqotay de in aniga iga bariiseesid mar walba oo aad dib iigu soo noqotay mar walba iga bariiseesid oo yani intaas waxaad raadinaysaa attention. ugu dambeyntii Naajo Caraale ayaa sii tiri ma laga yaabo inaan kuu soo jawaabo mar labaad. hadday dhacdo inaan kuu soo jawaabo waxaan ku hadlayaa warqad iyo qalin, taasay ula jeedo haddaad mar dambe wax iga sheegto dacwad ayaan kaa qorayaa, xabsiga ayaana ku dhigayaa. lacalla haddii ay noqoto inaan hadlo kama hadlay hadal kuma hadlayo, waxaan ku hadli doonaa warqad ayaan ka hadli doonaa insha Allah. hadday noqoto inaan hadlo warqad iyo qalin ayaan ka hadli doonaa. ma ahan markii ugu horeysay ee Naajo Caraale iyo Dirisle Cabdi ay isdagaalaan. hadda ka hor sidan oo kale mar ayay baraha bulshada hadallo xanaf leh isku mariyeen. Dirisle Cabdi ayaa markaas sii wado uu soo deen doono muuqaalo sir ah uu ka duubay Naajo, walow uusan xiligaasi uusan soo deen muuqaaladaasi. kiisi mar labaad ay ku celiyaan waxa qarsoon adduunka qarsoon ma sheegay laakiin adduunkaas okay iyo wad sheekada hadana iyo wad sheekada sababta uu sheegayna waxay tahay waa private. haddii aniga wax qaldan iga sheego ama been la sheego umba waxa soo bandhigi karaa wallahi halmaani billahi tallahi. daawade hadda ma laga yaabaa hadduu dagaalka sii xoogeysto inuu Dirisle Cabdi soo dhigo muuqaaladaas uu ka hayo Naajo Caraale? daawade adigu Naajo Caraale miyaa kula qaldan mise Dirisle Cabdi? fikirkaaga qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb. waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawato muuqaalkan. daawade haddii ay tahay booqashadaada ugu horeysay ee aad ku timaado janalkan Shabeellaha TV, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janalka subscribe aad saarato furtana gambalka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada xiisaha leh ee aan halkan ku soo baahiyo. muuqaalka xiga inta aan ku kulmi doono nabadino.